gudoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta Mr Justin Muturi ayaa sheegay in gobolka bartamaha dalka uu wali soo saari karo madaxweynaha xige ee dalkani Kenya isaga oo xusay inaysan ka daalin qabsashada hoggaanka ugu sareeyo ee wadanka. Afhayeenka baarlamaanka ayaa u sheegay dadka deegaanka inay u midoobaan hogaamiye eegi doona danahooda isaga oo leh waa in ay ka taxadiraan in aysan ku dhicin gacmo qaldan. waxa uu intaasi ku daray ballanqaadka hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ee ku aadan in cid kasta oo aanan shaqo haynin ay dawladda bil walba siin doonto lacag gaaraysa 6,000 oo shilinka dalka ah, taas oo uu sheegay inaysan xal u noqon doonin soo afjaridda saboolnimada. Mr Muturi ayaa sheegay in Kenyaanka u baahan yihiin siyaasado dhaqaale oo wanaagsan halkii ay ka ahaan lahayd lacag cadaan ah oo la siiyo, taas oo abuuri doonto saboolnimo halkii ay soo afjari lahayd. Kwa hivyo hata wakati tunasema tutafanyia wananchi hivi, tutawapatia hela ya bure ati wakae tu, unajua mambo zingine nasikia naona kama ni ndoto. Kwa sababu hiyo ya kulipa hao wenye ambao wafanyi kazi ni nyinyi tu wenyewe mtatoa. What is important is to make a conducive environment for all of us to apply ourselves innovatively and in an industrious manner. Gudoomiyaha oo horey u sheegay inuu xiiseynayo u tartamida jagada madaxweynenimo ayaa ku booriyay shacabka Kenyaanka inay taageeraan isaga oo ballan qaaday inuu soo nooleen doono dhaqaalaha isla markaana kor u qaadi doono maamul wanaaga. Wuxuu ballan qaaday in dawladdiisa ay ahaan doonto xukuumad si weyn u taaban doonto kartida dhalinyarada, isagoo sheegay in ay mudan yihiin in la siiyo fursad ay ku soo bandhigaan kartidooda. Dhalinyarada ayuu ku booriyay inay qaataan kaararka codeynta oo ay hubiyaan inay ka qayb galaan doorashada guud ee sanadka dambe, isagoo sheegay in tani ay gacan ka geysan doonto in aan la dooranin hogaamiyaasha aan sumcad wanaagsanayn. Waxa uu sidoo kale ku booriyay inay u tartamaan jagooyin kala duwan si loo doorto halkii ay sugi lahaayeen in la magacaabo. Muturi ayaa dhanka kale ugu baaqay hogaamiyaasha inay wax ka qabtaan arrinta qiimaha korontada ee aadka u sareysa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxa uu carabka ku dhuftay in qiimaha korontada oo aad u sareeyo ay micnaheedu tahay in lagu dulminayo maalgashadayaasha iyo muwaadin kasta oo caadi ah.